ما أنتو حمدوني أن إنفايدي أرضي شن وح وأرضي كستا أمهم إنو سنسمين امتحان كور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام دمانتينا كسر هذا الشنكة هذا الشنكة وصبتهاي مقعد وبارود عبد الرحمن. ما أنتو حمدوني أن إنفايدي أرضي شن وح وأرضي كستا أمهم إنو سنسمين امتحان كور. أوكي ونسكب لنا سلسعود عنه قوة كواد وحودين صاحبك إن صاحبته سؤال أي أرضية أنتو ذوق بدن أي سويديان مركب وجود الشرو ديارنتا امتحانك سؤال سؤال صاحب إما سجبتر بعد ديارسي فرناهنتي سؤال لمنتنا ونسويدينا حدي أي أرضينا هاي مركب وجود الشرو ديارنتا امتحانك لكن وحن إني شيء سببتا هذا الأمودين صاحبك سؤال أوكي تسأله حدي هذا ويديسيت صاحبك سؤال كدبنا وصاحبك كو جوابه صاحب شنو تون شابتر ايان دياري اديغنا لaba chapter oo kaliya aad diyaarisay marka isla marxanta maskaxdu waxay bilaabaysaa niyad jab iyo walwal inay ku keento sida darajo hoose inaad keentid oo saaxiibkana uu ka sareeyo iyo inaad hadallo kale oo badan oo niyad jab xagga imtixaanka leh inaad iskula hadashid ayay ku keenaysaa runtii way ka mid yihiin hadalaas talo maxay iga khaldan oo saaxiibkay inta uu diyaariyay anaan u diyaarin lahay maxaa faanka talo iga xun oo halkaas niyad jab weyn aad ka qaadid waqti badan aad wax ku xidhan lahayd oo kaga lumo niyad jabkaas awgii. Okay haddaba markan ka soo qaad inuu saaxiibkaa kugu jawaabay saaxiib 3 chapter ayaan diyaariyay adigana aad 10 chapter diyaarisay marka isla marxanta waxaad dareemaysaa nafis sida in arday ka sareeya inuusan jirin xagga imtixaan diyaarinta oo aad isdhigatid dadaalkaaga iyo cashar diyaarintaadana uu hoos dhac ku yimaado marka waxa ku fiican inaadan weydin inta lagu guda jiro imtixaan diyaarinta saaxiibka su'aasha imsa chapter baad diyaarisay ama imsa book baad xifdisay ama aad diyaarisay. haddaba sidaa daraadeed waxaa jira qodob aad u muhiim u baahanna inaad niyadda ku haysid mar walba kaasoo hala barbar dhigin diyaarintaada dadka kale diyaarintooda. 2 ha isticmaalin social media sababtoo horta social media fur badan yahay sida in wada ognahay oo waxaa ka mid Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Tango, Twitter ruuxantii aad iyo aad bay u far badan yihiin sidaa daraadeed marmarka qaar isticmaalida social media hoos u dhac iyo khasaaro weyn ayuu ku keenaa sida waqtigaaga inuu ka khasaariyo iyo daro inay ku hesho ayuu ku keenaa. tusaale waqtigaaga meesha aad ka faa'iideysan lahayd oo aad imtixaanaadkaaga aad diyaarin lahayd ayaad is arkaysaa adigoo WhatsApp-ka furay kadibna saaxiibka ku yiri assalaamu calaykum saaxiib waxa ku xigta isagoo salaanta ka qaada wa calaykum salaam saaxiib iyo waran sidee tahay iga waran halkeeni iyo iswaraysi dheer oo halkaa ka dhaco. Okay kadib waad ka soo baxday WhatsApp-ka oo waxaad gashay Facebook-ga waxaad istiri talow bal eeg saaxiibka muxuu soo dhigay ama group hebel maxaa la soo dhigay maanta iyo sidoo kale adigoo ku mashquula talow wixii shay aan soo dhigay imisa qof baa comment ka soo bixisay imisa like siisay intaa kadib waqtigii oo tagay ayaad aragtay kadibna cajis ayaad dareentay oo waad saxatay. runtii wax la soo koobi kara maaha waqti lumintiisa iyo khasaarihiisaba siba xilliga imtixaanka uu soo dhow yahay. isticmaalida social media marka ha isticmaalin social media xilliga ay imtixaanaadkaaga ay ku soo dhow yihiin waxa ku fiican inaad naftaada wax walba aadan ka yeelin sababtoo horumarka noloshaada adiga ayuu gacantaada ku jiraa. 3
waqtiga imtixaanka aad galaysid cunto badan hore hoos u cuni, sababtoo ah haddii aad cunto badan oo culus soo cuntid oo aad caloosha fuul ka soo dhigtid kadib imtixaanka aad usoo fadhiisatid waxaa dhacda in calooshaada ay ku mashquusho dheefshiidida cuntada culus aad soo cuntay oo calooshaada ay bixiso shanqadh sida ilo dhegaysta. shanqadhaasoo kale ay bixiso oo adna aad istidhaahdid talow maxaa igasi ah macdar xanuun baa isoo haya oo aad ku mashquushid calooshaada. iyo sidoo kale waxaa dhacda cuntadaas culus aad soo cuntay inay kuu keento caajis meeshii laga rabay inaad imtixaanka keliya aad ku mashquushid maskaxdaganna kaga shaqaysid oo keliya diiradda aad saartid inaad si fiican uga shaqaysid imtixaanka. marka waxaa ku fiican waqtiga imtixaanka aad galaysid inaadan cunto badan hore u soo cunin ee aad hore u soo cuntid soft food, yacni cuntooyinka fudud sida koob shaah iyo 2 midho laxooxa ama 2 midho canjeelo hadba kaad u taqaanid. 4 iska ilaali dib u dhigashada, sababtoo ah dhibaatooyin badan ayay leedahay dib u dhigashada, gaar ahaan marka lagu guda jiro diyaarinta imtixaanaadka. dhibaatooyinkaas oo ay ka mid yihiin sida inaad maadooyinka qaar aad fududaysato oo aad istidhaahdid maadadan oo wax yaroo kooban ee subaxa hore intaan imtixaanka aan gelin ayaan akhrin doonaa, kadibna hadhow ay kugu dhacdo waqtigii aad doonaysay inaad akhridid oo ay ku seegto imtixaanka markaad u fadhiisatayna mise imtixaankuba wuxuu u badan yahay maadadii aad fududaysatay. ileen horaa loo yidhi waxaad fududaysato adna way ku fududaystaan oo halkaas shalay iyo qoomamo ay ku qabato. ileen horaa loo yidhi sidoo kale shalay ma horeyso way dambaysaa. runtii dhibaatooyinka dibudhigashada ay u leedahay ardayda way fara badan yihiin, marka waxaa kuu fiican inaad wax dibudhigasho la yidhaahdaba niyadda aadan gashan oo maado kasta waqtigii aad ugu tala gashay inaadan dhaafin. 5 iska ilaali inaad waqtigaaga oo dhan wax akhris ku bixisid, sababtoo ah maskaxdaada waxay kaaga baahan tahay nasiino. marka aad in badan wax soo akhrisid maskaxdaada waqti ay ku nasato sida inaad break time yara qaadatid oo samayso waqti gaar ah oo aad saaxiibadaada la qaadatid. mar walba hadduu fadhiyin buugga waqtigaagana ha ka dhigin mid wax akhrisku uu camal u noqdo. runtii arrinkan wuxuu kuu fududaynayaa inaad isku dheelitirtid habnololeedkaaga oo waxaad isku daydaa inaad saaxiibadaada waqti yaroo kooban la soo qaadatid oo bannaanka aad u raacdid saaxiibadaada oo ah qaar aad isku hadaf tihiin oo aad waqtiyada fiican isla qaadataan. halkaas ayay inoogu egyihiin fayradii aan maanta idiin soo diyaariyey ee ahayd 5 wax oo arday kasta oo muhiim ah inuusan samayn imtixaanka ka hor. marka fiidiyowgan haddii aad wax badan ka faa'iiday channelkan subscribe gare, fiidiyowgana like sii. marka isbuuc walba sidoo kale ayaan usoo dhigaa fiidiyoyo badan oo faa'iido leh. okay insha Allah guul baan idin rajeynayaa waa inoo isbuuca dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.